والله إلهي عافمادي ما وين لكن كوا بدن بلو في لي عافماد كيga يسوي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaali meel walba ay joogtaan waa idin salaamay. Maanta waxaan wadaa gabar walaasheen oo ku dhiban Puntland gaar ahaan Qardho. Waxaan rabnaa inaan caawino maanta camal haddii la is caawinin waxa waaye ilaahay waxaa samaysato oo kugu gudaa insha Allah. Bil Ramadaan lagu jiraa, 10ka dambe lagu jiraa. Marka waxaan rabnaa inaan caawino insha Allah. Gabadha walaasheen waa dhiban tahay koleyba dhib oo ilaahay qadaray waaye. marka wixii loo qaban karo in la caawiyaan rajeynaa insha Allah. Fiidiyoweeda waa kana ila daawada horta marka hore. waa sida ay ii sheegtay xanuunada ay qabto oo sababay in 3 jeer la soo furo oo ninkii guursadana uu ka cararo iyo daryeelka hadda ay uga baahan tahay Soomaalida adigu aad ku jirto ayay inooga sheekaynaysaa. ka raali ahaada haddii ilinta ka qubanaysa ee bedesho dareenkiina. maanta danta iyo duruufta jirta awgood ee qabsatay inay soo fariisato in badan baahiyaheeda qarsanaysay qalbigeeda ku qarsanaysay. qofku waxaa muhiim ah inuu jirka ka qurux badnaado inuu qalbiga ka qurux badan yahay. laakiin qof walba wuxuu dareemi karaa baahida jirta markuu qof soo horfadhiisto kaamil. aniga waxaan ahay gabar sanadka 5 aniga waxa kula jirta hooyadii Allah iga qaaday aabahay isaga xanuunsan wuxuu ku noolyahay Somalilantaas kaliya awlaad iga dhalay. fahmi aniga maanta jooga dunida ma jiro ama wax taraya markaan xanuunsan tahay ama muugaysantahay ama dhiban tahay waxa kaliya kula wadaagi dhibkaaga oo qofka damqanaya ama jirkaaga runtii in qalbiga jirka laga qurux badnaado wax wanaagsan in qalbiga laga qurux badan yahay. aniga maanta waxa la noolaa sokor waxa la noolaa dhiikar waxa la noolaa neerfe waxaan aan qofta kaliya maalinta 3 dhacda إلا إلهي أنت وقري معنا. الحمد لله دنيا وقصة سنة هاي امتحان إلهي أنا إلهي عافنا دي موين والله إلهي عافنا دي موين لكن هو بلن في اللي عافنا كتير يسوي الله وهاي قاعد صنيع 3 كول بس ما نقولش هذا مدول بوها بلغ على ده كتير مدول بو يسوي دوي أنتوا تقولون زين وين هاي laakiin maalinta nolosheeda gudaha u galay waxay igu noqotay nolosheeda caqabad. markaan sugayay farxad markaan sugayay garab istaag 12 sano nolosheeda ka mid maanta 12 sano ilaa ay maanta nolosheeda farxad ma arag. taqarada madaxa ay ku yaala waxa ay geystay oo jirtay oo xanada maanta aan dhacay geystay wada faamilkay ka mid ah. alxamdulillah ilaahay baa ii qoray ilaahay wuxuu ii qoray inay ani karto wuxuu ilaahay ii qoray inay ma siin karto laakiin galabta halka waxa u soo fadhiista aniga in la dhahay gabadha yarta way in la dhahay wajiga asaas way waji qurux badan homa taro wallahi ma sohbatana inta iga daaysan maanta wayna qalbiga ka daaysan waxa laga yaabaa kuwa iga mid aniga inay habeenkii farxad ku socda aniga ilmo ku socdo way maanta kala galab adduun way boonti wan aankinin ku gato maasto sokor baa la nool ikar baa la nool neerfal ee ka iga saas u daadanay mid soo dhacay habad baa gacanta iga dhacday halka habad baaga halkaas laga soo saaro jirkayga saas u noqdo wada barbaraha mamada bararkaas way jirkayga u noqdo. alxamdulillah oo ku qanacsana ilaahay uu fursad ii keenay ugu madacnani bin aadan ani waxba ima tariko laakiin maanta ma shaqaysan karo waxaan ku shaqaystaa maasto qofta duruufaysan baa hawla ma haysto malihi qofna qof xanuunsan ma rabo qof walba oo bin aadan oo dunida ku nool wuxuu rabaa qof caafimaad qaba. ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala bin aadan ka dushu ka sida laakiin dareenka iyo qalbigu ilaahay ku kala dadwe maanta waxay walaashii Soomaaliyeed ilaahay baana Soomaali naga wada dhigay muslim baana ilaahay baa inama almu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum ilaahay baa yiri fa in taabu wa aqaamu salata wa aatu zakata fa ikhwanukum fi din ma aha walaalku kan kula dhashay ay waa ka soomta salaada iyo sadaqada la baxo walaalka maanta waxaan walaalay waa kan dhashay la ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah waxay niga cusaniya ilaahay darti biwajhi allah qabiil niga cusaniya Soomaali nimo ilaahay darti wax niga cusaniya maanta ina garab walaalnimo ii fiirsan maadaama inta mumkin rabadaan lagu jiro oo khayrka badna in ilaahay rabbi subhanahu qof walba wuxuu baasan leeyahay qof walba dunida uu ka tagayo buuxda oo sax u buuxda maanta awlaad ma haysto aan ku indho kusho xanuunkaas qof walba iga reebay maanta gabadhay waa shay aad sayjata
laakiin maanta qof walba uu isu hanqal taagaya quruxdeeda markuu arko laakiin qof dareemi kara qalbigayga ma jiro waxaa ku jira marka insha allah qof walba ilaahay oo qulubtiisa qof walba qalbigiisa ilaahay wuxuu ku jiraa u rumeeyo ani marka waxaan rabaa inaan walaaltinimada murugada ay la qaybsataan maadaama aanu ah qof dhiikar iyo sunkar la nool oo stress aan u baahnay haddana stresska aan noolahay waxaan iga rabaa garab waxaan iga rabaa walaalnimo waxaan iga rabaa islaamnimo inaad ilaahay darti wax iigu qabataan biwajhina waayo maanta waxa ay qabataan u baahan idinkuna birka maalin baahidaysan idinka u baahan qof walba maanta wuxuu baxsado unbaa meel u yaala waayo dunideeda ayaamo iska kooban oo ayaama macduudaad qofna uusan adduunkan uusan ku waarin haddii qof ku waaray nabi maxamed baa lagu innaka mayitun wa innahum mayitun dareen marka waxaa dareenta maanta gabar walaashaaya oo ilmeynaysa oo adduunka kugula nool oo magaca soomaalinimo iyo islaamnimo kugula wadata ya maanta waa garanaya dad badan baa waxay dhahaya nabi maxamed facebook waxaa soo fadhiistay social media laakiin dhibaatada haysata ma dareemi karaan ani unbaa dareemi kara ani unbaa dareemi karaa waxaa dakhal wajigaya ku yaala waa jidda nin 12 jir igu sii igu geystay maanta awood ima sheegan karo iga awood badan marka bilasxaan ilaahay dartii waxaan dhakhtar ku tago iigeeya dhakhtar meel iigeeya intaas badad islaama oo mucaawinaada oo muxsiniinaad tina xididka islaamkaas xoolo baxa ani intaas ayniga cusubnay bifadla qofna qof qalbigiisa kama turjumi karo markaa dhaawacantaad oo markaad murugaysantahay dunida dhan baa markaad murugaysantahay waa kuwa kaliya laakiin marka aad qoslayso qof walba wuu kula qoslaya wuuna kula dhool cadaynaya laakiin ma jiro xaqiiqadii marka oynis qof kula oynaya maanta ma soomo ma awoodi karo sokorteeda way dhacaysaa way kacaysaa waxaa iskaga bixiya ma awoodo gabadha ala noolahay maaha qofaan ehelnimo kula nool ilaahay dartii waa ula nool galaas biya maanta ma awoodi karo marka walaalayaal bifadla ilaahay dartii wax kale inagama rabo maanta wallaahi wax badan baa dad oran jira hala caawiya anuu warayaasha u geyn jiray tviyada anoo dhibkay qarsanaya laakiin waa qarsan waaya xaqiiqatan marka ilaahay dartii biwajhi illaah waxay igu qabta biwajhi illaah idinku aniga magac iga raadinayn qabiil igu raadinayn soomaalinimo ilaahay dartii maanta waxaan iga rabaa insha allah jazaaka allah marka alxamdulilah ilaahay horta ha caawiyo ilaahay ha u gargaaro annaga waa inaan caawi karnaa dadaali karnaa dad soomaali waxa lagu yaqaana dad damiir leh dad dadka caabiso dadka iscaabiso insha allah marka kolleyba waxaan u malaynaa lambarkan kor ku qoran inuu yahay ma aqaano qof alaala qofkii caabinayo marka hore lambarkan ha hubsado saan dareemayo lambarka inuu yahay gabadhi walaashan way dhiban tahay ummad badan oo soomaaliya dhiban way jiraan qurbaha dadka joogo gaar ahaan dadka dibadaha ku maqan waddanka ka maqan waxaan rajeynaa inay gacan ka geystaan gabadhan walaasheena miskiinta in la caawiyo dhib rabaaniya haysto kolleyba waxa u qaban karnaa u qabanaynaa wixii kaloo culeysa ilaahay waxa ugu baryaynaa inuu ka qaado bil ramadaan lagu jiraa insha allah walaalayaal taasaan isku ognaa insha allah halis caawiyo qof walaalkeen aan caawino aan u gargaarno wallahi saaki markaan fiirsada videogan lasoo geliyey waa ilmeeyey insha allah khayr badan aan idin rajeynaa caafimaad aan idin rajeynaa kulligeen insha allah aan isgarab qaban hadduu ilaah yiraahdo